بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دبال جنال كينا قاعم فرن إي قلب صافية وإذين سو دوينا الصومالي وين وانا إذين السلام عليكم ملو بجوكتان مالي ونكسن أصحابي. ma kugu dhacday in qof hawada aad ka jeclaatid? wax dhici karo waa sama wax dhici karo oo qof walba oo bini aadan ah ku dhici karo waa wax caadi ah. waxaa laga yaabaa daawadayaasha dadka qaar oo daawadayaasha ah inay dadka ay daawanayaan ay jecel u qaadaan. wax dhici karo waa wax caadi ah, waa dhici karo. laakiin bini aadanka markaa jaceylka adiga aad ku dhacaysid ama aad wax jeclaanaysid maxaa la dhahaa amar la-aan waay. amar markaa qaadanayo so amar la-aan waay, laakiin adiga maxaa awood u leedahay jaceylkaas inaa hubisid sax inuu yahay inuu qalad yahay ayaa awood u leedahay. waxaa awood u leedahay inaad joojisid iyo inuu sii socdo ayaa maxaa la dhahaa awood aad u leedahay. waa wadi kartaa, waa dhihi kartaa aniga shaqadeeda maaha natiijadii ka imaato anaa mas-uuliyadeeda qaadayo, qofkaas waa jeclahay waa ku socon kartaa, wax caadi ah waay. hadda ka hor buug aan akhriyay mar hore buugaas waxaan akhriyay weliba anoo dugsi dhexe dhiganayaan akhriyay buug ka sheekeynayo jaceylkii muqdisho. magaciisa waa xasuustaa. buugaasayt wuxuu ka sheekeynayaa buwaagta jaceylka aad u jecleen anaga markaa yareereen, buwaagta yariiska oo jaceylka oo kulligooda waxaa 10 baal 20 baal hadday u bataan aad u jecleen. maktabada waa aadi jirnay, waa soo qaadan jirin dadka wax akhriska jecel oo ila da-da oo waqtigeyga joogay oo maxaa la dhahaa soonheen degan amba meel kaleenta ama muqdisho guud ahaan degan. waa ogyihin waxaa maktabada tagay marka ugu horeysa buug waa gadanaysaa. saasay ahayd buugga markaa gadatid markaa soo dhameysid buugyaa u geynaysaa, buug kale ayaa soo qaadanaysaa. soo akhrinta waxay noo ahayd wax aad u sahlanay noo ahayd oo buugaagtaa rabno ayaan soo qaadan jirnay. haddaa 2 buug aa gadatid, 2 buug markaa dhamaystid 2 geedaysa, 2 soo qaadanaysa. halka mar oo ugu horeyso oo kaliya ayaa la gadanayay nidaamka saas ah. marka buugaagta aad u akhrisan jirnay markii la yaryahayna waxaa la jecel yahay soomaa sheekooyinkaas aad loo xiiseeya ama aad loo jecel yahay. waqti aad u hore buugaag badan oo akhriyay oo aad u qurux badan sida maanfay oo kaleente, ayaan daran oo kaleente, jini jaceyl magal sheekooyinkan yaryar buugaagtan yariiska waxaa waa kun waa akhriya umaleyn haddaan xisaabinayn aadan u akhrin jiray. marka buugaas wuxuu ka sheekeynayay wiil ayaa muqdisho imaanayo. muqdisho markuu imaado wiilka reer muqdisho ma ahayn, wuxuu helayaa sawir ayuu wuxuu ka helayaa dhulka ayuu wuxuu ka helayaa sawir gabar aad qurux badan. sawirkii ayuu jeceyl u qaadaya, soo sawirkii uu jeclaanaya, gabadhii uu raadinaya ma xasuusto natiijadii meeshay ku dhamaatay ma xasuusto. xusuusti mi ogolaan isla buug waa akhri waa dhamay. marka wax dhici karo waaye waxaan soo qaatay wax dhici karo waa in qof hawada aad ka jeclaatid, in qof codkiisa dhageysanaysid kaliya inaad jeceyl u qaad wax dhici karo waay. soo bini aadanka dareen uu leeyahay, waxaa waaye dareenkaas ayaa kusoo jiidanaya. soo waxbaa kusoo jiidanaya wax oo ceeb ma haba yaraatee wax oo ceeb ma dadka waxaa laga yaabaa inay dadka ay ku ceebeeyaan, ay dhahaan see hebel u jeclaanay, see heblaay u jeclaanaysaa oo shaashada oo kaliya aad ka aragtid, see u jeclaanaysaa in ay maxay su-aal oo canaan ah inay dadkii ay soo jeediyaan oo canaan ay ku imaato ayaa dhici karta. laakiin caadi waaye macnaheeda markaan ku dhahayo maaha inaan dhiirigelinayo, maaha inaan ku dhahayo waxay kusii soco. soo waa jeclaan kartaa. soo jaceylka waxaa waaye amar la-aan ayuu qalbigaaga u galaya. soo awood naga weyn waa anaga o dhan markaa wax jeclaaneyno, markaa wiil tahay gabar aad jeclaanaysid, markaa gabarta wiil aad jeclaanaysid, awood anaga oo dhan naga weyn waaye oo subxaana watacaala uu ku beeraayo ruuxeen uu ku beeraayo. laakiin awood anaga aa leenaha jirta mar walba oo inaa hubin kartid jaceylkaas sax miyaa amba qalad miyaa. inaa hubisid muhiim waa horta koo. inaad inta aadan go-aanka gaarin oo aadan dhihin jaceylkaas ma sii wadaaya, ma sii joojinaya mase waa sii wadaaya intaadan dhihin waa inaad isweydiisid sax miyaa mase qalad inaad isweydiisid. waxaa dhici karto qofka adiga aad jeclaanaysid waxaa laga yaabaa
haddii wiil uu yahay oo wiil gabadh uu shaashad ku jeclaanayo oo kaleenta gabadh inay xaas tahay waa inuu hubiyo xaq waay soo ma inuu hubiyo soo jaceylkaaga wuxuu noqonayaa mid oo maxaa la dhahaa oo laf bacaad maxaa la dhahaa hal bacaad lagu lisay oo noqonaya soo hadaa qof la qabaa iska jeclaatid soo jaceylkaagii ma hirgalaayo mana suurto waayo gabadhii oo kaleenta waxaa laga yaabaa nin xaas leh oo xaas kale aan rabin inuu yahay ninka ay jaceyl ku qaadayso oo jaceylkaaseed uu yahay mid aan hirgaleynin oo haba yaraatee qof waxaa jira bini aadan ah qof kaliya rabo inuu la noolaado oo qof kale aan rabin soo marka waa inaa hubisid qofkaan noloshiisa waa sidee waxaan u leeyahay waxay tahay wax dhaco waa dad badan oo dhalinyaro ay ku dhacdaa waxaa dhacdo adduunka oo dhan ay ka dhacdaa wax dhaco waa wax cusub maaha wax ceebena maaha in dadka horta ay fahmaan laakiin waa lagugu ceebeynaa soo maadaa tiraahid heblaayaan jeclahay oo shaashad aan ka arko heblaay se u jeclaanaysaa heblaay iska jeclaanay hebelaan jeclaa hebel se u jeclaanay hebel iska jeclaanay lagu dhaho waxaa laga yaabaa wax dhici karo oo adduunka dhaco waaye waxaa dhacda qofka codkiis oo kaliya in dad oo jecel uu qaado maahan jaceylka oo maxay ahayd oo ixtiraamka ee jaceylka oo maahan jaceyl waxaa jira ixtiraam soma inuu qofkii ku jecel yahay liajli illah kaas qurx waay kan kale xataa qurx waaye soo qofka dembigiis maaha inuu ku jeclaado laakiin waxaa jira qof jaceyl kaa rabo oo la noolaansho jaceylkii ragga iyo dumarka oo qofkii inuu kaa rabo oo la noolaansho inuu kaa rajeynaa oo niyadiisa ay tahay in riyooyinkiisii oo uu dhisanayo uu kugu darsado qofkii oo adigana maxay ahayd aanay suurtagal asagana aanay u ahayn amba ayadana aanay u ahayn soo wax dhici kara waayo gabar iyo wiilbo waayo dareenka bini aadanka mid waaye soo malahan gabar waayo wiil waayo malaha laakiin waxaa awood u leedahay inaa hubisid qofka adiga aad jeclaanaysid mararka qaar waxaa dhacdo qof adiga aadan lahayn inaad jeclaatid gabdhaha waxaa ku dhici kara mararka qaar inay jeceyl ay u qaadaan qof aanay lahayn ama aanay lahaan doonin oo ay og tahay inaanay lahaan doonin oo asbaabo badan ay ka hoos gareenayo waxaa waaye samankan dambe akhlaaqiyaadkii ayaa soo dhumaya tan oo markii laga tago qofka banaanka ka jeclaanaysid wax caadi waaye wax oo akhlaaq dare ma haba yaraatee wax caadi oo aad caadi u waaye wax laysku ceebeyn haba yaraatee maha waa jeclaan kartaa laakiin waa hubinee maxaa la dhahaa inaad joojisid jaceylkaas inaad sii wadid soo awoodeed adaa iskale jaceyl walba xataa qofka adiga ku jecel isjeceshihiin oo aragtaan inaad guriga galeyshaan xataa ku guriga asla nooshihiin ayaa jaceylkaas waxaa awood u leedahay inaad joojisid iyo inaad sii wadid soo awood mar walba anaga waa leenahay bini aadanka waxaa waaye qaarkood ma fahamsan awoodda ay leeyihiin inta ay la eg tahay anaga awood aan leenahay oo ilaahay subxaanahu watacaala nagu manaystay inta ay la eg tahay dadka qaar ma fahamsan soo waa awooda u leedahay kaas ayaa waxaa awood u leedahay inaad joojisid haddii uu noqdo mid ku dhibaateena haddii uu noqdo mid maxay aad ku dhaawacayo inaad joojisid ayaad awood u leedahay kii labada qof ahaa weliba oo laysla wadi waaya haddii guur noqoto iyo haddii guur ka hor noqoto kaas xataa awood ayaa u leedahay soo inaad joojisid markaad aragtid jaceylkani inuu meel daran ku wado jaceylkani inuu meel munaasibkaaga aan ahayn uu ku geynayo jaceylkani inuu ku liidaayo markaa aragtid kaas ayaa waxaa u leedahay awood ayaa u leedahay marka kan oo kaligaa maxaa u malaysay oo kaligaa oo qofka weliba habada aad ka jeclaanaysid amba shaashada aad ka aragtid amba maxaa la raadiyo aad ka maqashid amba joornaal xataa qof waxaa laga yaabaa qoraaladiisii dadka aad wax u aqriya waxaa laga yaabaa qof qoraa in iska jeclaadaan amba qoraayad in iska jeclaadaan laga yaabaa aanay aqoon u lahayn soo qofkan mararka qaar isweydiin noloshiisa dhabta ah nolosha shaashada miyaa su-aal waa iyada laftirkeeda aad u qurux badan oo inaa isweydiista ay qurux badan tahay waayo dadka dhan oo shaashada soo istaago noloshooda dhabta ee maaha 100% qof walba waxaa waaye wax uu la soo shirtagaa wax yar waa heli kartaa dad aad u yar ayaga laftirkooda waxaa faafareeb waa jiraya marka qofkan noloshiisa waa sida isweydiin marka jaceyl oo waxaa jira aan ku suurtagaleynin kee waay kaas jaceylka akhlaaq darada ah oo masalan qof adi aad suu dhowdihiin oo kaleente qofkeeda gabdhaha u badan sooma gabar walaashaa oo kaleente gabar saaxiibtaa oo kaleente seegeeda oo kale markaa rabtid seegiin uu gabadhaas jecel yahay soo ma kuu suurtagalay sooma kaasoo kale waxaa waay jaceylka aan kuu suurtoobeyn waay ma kuu suurtoo waay soo gabdhaha waay wiilasha maahan kaas gabdhaha inta badan zamanadan dambe waxaa waay akhlaaq xumooyinka soo batay oo anaga haddaa mujtamacii Soomaaliyeed ama bulshadii aan nahay nagu soo kordhay oo ayada laftirkeeda waxaa waay baraarujin in laga sameeyo
oo jooj in la joojiyo waxyaabahaasayt aan wacyigelin ay ka sameyn ay tahay waayo waxyaaba aan aad u jiri jirin oo aad usoo batayaa jiro oo akhlaaq dare ah oo aad akhlaaq dare oo aad jirkaaga oo diidaayo oo damiirkaaga oo diidaayo oo maxay ahayd taas gooni wanaagsan aan ka hadlayna maanta waxay tahay jaceylka qofka meesha fog kaa jooga ama aad aragtid ama aad qoraalkiisa aad ka jeclaanaysid amba maxaa la dhahaa raadiga aad ka maqashay oo kale aad jeclaanaysid amba sawirkiisa aad aragtid oo kale inta aad jeclaanaysid mararka qaar waxaa jira jaceyl qofka intii lagaaga sheekeeyay aad jeclaanaysid oo adiga aadan arkin laakiin sheekooyin lagaaga sheekeeyay oo kaliya ayaa ku jeclaanaysaa oo qof ayaa waxaa arkaysaa qof kale wanaagiis ka sheekeynayo markaasaa wanaagiisii aad u jeclaanaysaa